maanta safarkaygu wuxuu ku aadan yahay magaalada Eyl, magaalada quruxda badan leh aad aragteen ee ku taalla gobolka Nugaal ee Puntland. laba laami baa jira Eyl lagu tago. midi waxa weeyaan mid dusha sare ka wareegayso Dangoray maraysa, deetana Qarxis maraysa, deetana saa Eyl ku tegaysa. ta kalena hoostay ka maraysaa, abuuraha hoostay ka maraysaa, Bambay maraysaa. aan labadu way kala dhow yihiin, laakiin waxaanu door bidnay markaanu sii soconay inaanu laamida ku horeyno, tan laamida oo labada wadaba aynu eegno. tan laamida aanu hadda marayno waa ta ku socota Dangoray. laamida Dangoray bay ku dhamaanaysaa oo waa laga leexanayaa. Dangoray way sii soconaysaa laakiin waa laga leexanayaa. markaanu ka leexanay dee waxaanu maraynaa Raf ilaa intaanu ka gaadhina Eyl. marka Garowe ilaa Dangoray waxay nagu qaadatay saacad iyo wax yar, laakiin Dangoray ilaa Eyl intaanu ku gaadhinay waxay nagu qaadatay ilaa 3 saacadood iyo badh ama 3 saacadood 4 saacadood wax yar la. in badan baan ka soo fogaanay waxba ma jirnay imika Eyl. saacaduna waa 10 iyo 25 1 hour approximately 1 hour baan kan soo soconay Dangoray ilaa iyo Qarxis 1 hour waxaan noo haray saacad baan soo togi ma sheegtay makana kuna biyo mareen meesha saacan hay ani masaaj xoo jeeda sana oo qoraaqsan masaaj toos buu jeedaa jeeda masaaj waa sax weeyaan hada halkaas u jeeda waa sax ma jeeda halkaas u jeeda fan qiblada ma saxnaa masaaj ya qiblada ma saxnaa Silviinti baan soo gaadhin halkan. laakiin markaanu soo soconnay waxaanu soo marnay bankii hoose aan buuraha iyo waanu ka soo baydhnay buurahaada imika arkaysaan. waxaanu soo marnay Qarxis baa laga soo leexanayaa, Bambaad soo dhex maraysaa ilaa intaad ka soo gaadhisay laamidii caadiga ahayd Dangoray iyo u dhaxaysay. marka waxaan kaga soo dhacaynaa annagoo in yar u jirnay Garowe, annagoo ban soo marnay, hoosta soo marnay, buurihii ka soo baydhnay ayaa waxaan ku soo dhacaynaa haddana laamida. taasina waxay nagu qaadatay 3 saacadood iyo badh. marka qofkii tagayow dee ikhtiyaarka adiga ale inaad laamida ku horeyso Rafka iyo buuraha aad sii marto sii daawato, amba inaad banka ka wareegto dee aad hore uga gaadho Eyl iyo Garowe inta u dhaxaysa. Eyl batigsa والله ما كيفك هاي hadda saad u arkaysaan hadda waxaanu soo galnay Eyl. halkan waa wadadii loo mariyay ee buurta dawgii Sheekhun bay la eeg tahay. dawgaasaa la marayaa, buurtaasaa laga dhaadhacayaa, hoos baa loogu dhaadhacayaa Eyl baa markaa laba ah. mid halkaan nooga muuqata oo la yidhaahdo Daawad, oo Eyl Daawad la yidhaahdo, iyo Eyl Baday oo baddii ah oo iyadu baddii Indian Ocean-kiya. marka labadaasaa loo kala saaraa Eyl, midna waa tii magaalada, midna waa taa aan badda ah. marka tii magaalada halkaan nooga muuqata imika saad u arkaysaan taasi waxa weeyaan Daawad, laakiin Eyl Baday waanu sii dhaafi doonaa. waxaanu tegi doonaa horta Eyl Baday. بالله بالله والله ورنت بل انت ليك تيك انا هوس مرينا كان ما هو كل شيء يعني كم شيء تعالوا كان شيء كان والله انا وامد يا كاول مكاسة
إنا لله سبحان الله كذا معها وأنا أركي طبعا يقدر شكل يجي أنا رأيي قصور عينه كدافع دنقاس نو أي شيء مقالد وبورتا هولتا وين هذا أركي بورتا ستيت هاي هالكن صامرني هالكن نحوين هالكي بطل ما بدي طلقة كم قطر توكل إنه حويان وتوكل بيها سوق هذه بس كيف هم يطلعوا أوروبا أتصل بيها bartaan hadda ku soconno waxay iska leen in la yiraahdo qoraa maxamuud diiriye ama naanistiisa tahay Dirios oo hadda Mareykan jooga ayaa halkaa ka sameeyay museum oo ugu talagalay inuu ku soo bandhigo alaabtii dhaqanka iyo alaab kale oo deyl u gaara marka bal waan soo eegi doonaa meesha bal waxa lagu hayo iyo bal hadda sida la soo dhaweeyay meeshani waxa weeye taariikh dheer bay leedahay tan uu sameeyay ninkii yagleelay meeshan ama sameeyay horta waxa waaye Maxamuud Dirios wuxuu caan jiray dadka aalaasi u yaqaanaan Soomaalida badankeeda waa nin aqoon-yahanka ah oo ma garanaysaa akademiyada cilmiga iyo fanka oo ma garanaysaa Soomaaliya madax ka ahaa marna mashruucii geela Soomaaliya madax ka ahaa veterinary مرة هو مدحك ماشي اللي هذا نشن متحف كي قرنك ومرة جدا بيسيكس كالفوراي وحكونا قضي دايركتور هذه ويارنا بنقول لي هاي dadkii dalka wax u soo bartay waayo Soomaalinimada ku shaqeeyay daacadnimada ku shaqeeyay runtii amaana ma laakiin waa yahay dadka kaaga warramay ama Soomaalida si ay u taqaan
marka dadka xamar waagii hore waxay dhihi jireen Dirios Maxamuud Dirios markaan aan iska baxday Diriosle saa iga sheekay saas ku baxday Dirios leh. Diriosle Hey. odayaal dadkii jaamacadda isla ahaayeen waxyaaba isa soo ma jirin Aad iyo nicknames oo dad Soomaali jirin Ah. marka waxyaabo badan baa jiray Dirios kadib waa dadkii gartay Muqdisho waagaas Ah. in laga sii yaacay laga sii baxay isaga waaba sii gartay ilaahay waafajiyey waba ka tegay reerkii ka tiray isaga ka dambeeyey kii waa Kismaayo ka baxay waa markii dambe Hey. ala ay xal doon la mar ka dambeyn karo raacay saasoo dibadda ku tagay in ka soo jecleen dadka dibadda jeclaa ma isaga 1981 80 buu dibadda jiray nin ku cusub adduunkan ma ahayn isbuuc uu duuli jiray marka walaalow waxa weeyaan meesha tani horta eel baa lahaa waxa ka horeeyay serbeer uu halkan ka bilaabay waagii dowladda Cabdiweli uu fiirfiirinayay selection uu sameynayay marka halkan ilaa iyo ma garanaysaa bari ilaa iyo caluula ilaa iyo garacad waa 5 gaari Cabdiweli cali gaas waagaas uu yimid hore dad si yaqaanina way ahaayeen Mareykan ahaata ama Soomaaliya marka wuxuu yiri ra'yigaas ka wada tashteen marka talo xog soo jeediyeen waldiriyo waana samaysaa ma garanaysaa serbeerkii ilaa iyo maxaa ku yiraahdaa meesha la yiraahdo bari ilaa iyo garacad diriyo wuu sameeyay wuxuu ku maqnaa 14 days buu serbeerkaas 14 cisho si niman kale oo cadaan ah wada socdo Sweden iyo ka soo raacay meelo badan ma garanaysaa serbeerkii markuu sameeyay oo wax walba uu ka soo qoray oo dhulkii fiiriyay oo dhulkii baahidii waxa loo baahan yahay dadkii wixii qoraal loo ka sameeyay waxyaabo badan marka wuu soo laabtay warankiisii wuxuu ku mutay meeshan la yiraahdo Eyl Baday Harariya Eyl Children Museum baa lahaa faraskiisii meeshaas ku istaagay kowdii marka ha ahaatee meeshan taariikh baa ka horeysay taariikhda ka horeysay ilaahay iswaafajiyay 3 shay baa la iswaafajiyay tiisi oo serbeer ka ahayd taariikhdii meeshan oo darawisheed oo qalcadihii Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan ay ku yaalaan daawad halkan ilaa ilig waa ta ku muuqata waa arki doontaa iyana iyo mid ka sii horeysay oo diiriya aabihii baa waxa dhacday in halkan soo yar 9 jir la keenay oo yar wax barashaan rabaa geel la joogi karmay oo oo kamid marka diiriya ayse oogay marka nin la yiraahdo maabti ahayn aadan dibadaabi halkan muqaddam ka ahaa baa wuxuu yiri ilaa gabankan saxiimad bari ka imaanaysa hala saaro hala geeyo hobyo wadanka Ingiriis Talyaani haystay passport waa loo jiray adigoo iska in yar baa iska laashay saaro kala sax bis marka baa la saaray hobyo laga saaray marka kii gooro sii socday 6 saacadood 7 saacadood meelaha Soomaaliya waa nin gaala marka gariigo ah weliga inta noo shaqeeya raacay marka khanka كروجي ويرنعنا عبي وسبسبي يا عبي وسبسبي هو كديدي ما كان مقطع مية كسوكري هم قال كده سؤال معه تكمل ده في جيكان وهاي عادي أضيقها very active مركب ولا رو أنا كيدو أساسي هاي خمسة سنة جايبيري مكاسير ضيع فيري ضيع واقع ضيع سمارك حبوك هذا بيرو وحنا واقع كتير إنه يفتين ما يروح مكاسو ندير حب من بوها أنتوا سامر كويري بيلا مكان صامتوا لو تكحوري لو ما تكحوري هاي وعباري سدي صاحبين هاي بدوين هاي إلهم بقول بدي بعوز حوري يعني دري قصيصا كاجا ورمي تجي مكتب وقدر هيستوري واي مركا الغطورة أبا إله بقول لي هاي مركا وحى سوق هذه سوق دفتي مركبة سوتي قدام بيس مريا نبري بسوق هذا نبري بسوق كاس هذا مشتال ساسو دري نبري بسوق نبري ساسو كان نبري قدي سوبي على كان ماشي هذا اللي صوته بس نبري وسوق هذا وحو وضبط وبرجي وحو دعي ماشان إلك دحدي ماشان halkan odagii abo nibirgi meesha inuu soo cariyo ku dhaqo ku soo xoray nibirgi meesha uu soo xor odayaal bad ku jiray oo suuxi shabaago yaala maxay dheen war gabanka waa ka hala soo qabtay gaban baa nibiri soo xoray gaban baa nibiri soo xoray
ilaahay amarkaa soo qabteen war xaggee ka timi war halkaana ka tegay markii hore xamar waan ku socday aadan dibdabay dareemiyay inaan wax bartaan rabay muqdisho waa ka aadan dibaa ma isu tiin deena ateen eedaan nahay runtii nabadoon guud buu halkaan marka waa kaas halkaan la keenay meeshana sidii loo keenay diiriba soo qarraacay taariikhdii sayidka iyo tiisi iyo waxa ishelay iyo TAB taariikhda marka meeshana ku amaamuday oo yiri alla ilaahay waaba tahay waa meesha waa bas waafaqday بدي بالله مقالة قبل بعد كورة نوتري هدي بدي يبور ليه هاي بعد هدي بدي يبور ليه هاي هدي تميري طلع ليه هاي هدي قرد يقبل ليه هاي هدي جديد يقري ليه هاي هدي مضح يماموس ليه هاي هدي قرد يقبل ليه هاي هدي مول يماخر ليه هاي والله لو محيشو سنة إيلي ما مقالة دي دارين حطت كذا تلا أدون كمل عن كتشعل عمله سوالي دي اللي جيرون إيل بان كدبر مال كقرح بدل ماله وقول إسكسيون هل كاسة سحن كداو كوري عيد كل سيات عمله أيه أنت واقع إنت لبلا بيكوس إنسان دب دب بيكوس إنسان ما كان بس أنا كراب بالودا كراب ويا كراب حق كراب بالوي قناع كراب بالودا سيدا hotel halkaasaan caawa seexanaynaa alxamdulilah dacaaw cayil baan joognaa il baan caawa seexanaynaa marka aroortana waxaan aadayaa meel halkaasoo aad u qurux badan dee waad arki doontaane halkaasaan aroorta tegayaa deetna aroortii baan iskaanba bixi doonaa waan jarmaadaynaa ilaa garawe ayaan dib u jarmaadi doonaa dee garawena waan tusi bal siday u egtahay iyo kuli waad aragta garawe laakiin meeshana aad aniga igu weyneyd oon doonaya la soo booqdo halkiina alxamdulilah rabbilcaalamiin waa aniga nabadii mid soo booqday kasoo dhargay darown wanaagsan kasoo duuba idinka arkaya hadhowna aroortana waad arki doontaa isagana waan soo waday aroortana iyo magaalada iyo marka kun jeer baan ku celiyay baday iyo daawad baa la kala idhahdaa eyle waa laba maxaa waa daan iyo daanbadi maxaa magaalo ma odhan kara waa laba magaalo waa laba daan daawudna waa magaalada badayna waa badday saarantay marka anagu baday baan caawa seexanay daawud xasaabsi badan ma yeelan taaladii sayidka yaala taaladii sayidkana hadhow baan soo mari doonaa laakiin halkan dee badda yaa kamaan baddi ma arkin iminka laakiin halkaawadii ka maqlaya baddi iyo badda in iftiin lagu xidhaa wanaagsanaan lahayd oo sidaa coastline-ka loo raaciyo sidaas waa dangerous waxaas
okay dhib ma leh anyways hotelkuna hotel wanaagsan aad buu fiican yahay bahashan iyada ah waxaan soo cabiyey ilaa dinima halkan Puntland baa laga helaa malaha bahalkani waxay maaha this is very addictive wallahi billah addictive waa sharaabkani weligeyn soo cabay maba cabaan soo dhahay waxa macmacaan iyo waxaas laakiin bahalkani dinii calooshana wuu fiican yahay ana caloosha aad baan u ilaalinay maadaama safar ahay marka hawshaasaan wadayna aad baan idin salaamayaa wayna weerarta halkaas waa badii saad arkaysid badii wata nuuna halkan aan joognaa buurtiina saasay afkan ugu soo haysaa baleeg buurta hoosteeda ayuun baan fadhinaaba oo hotelku ku yaalla hotelkan waa idinka arkaya marka dad meeshan cajiibka yahay buurta waata buurtu saasi usoo wareegaysaa weliba saasi usoo wareegaysaa buurtu sana saasay afka badda uga gelaysaa buurta badina wataa marka ilaa halkaa shishan aadaya marka maanta soo keligay waltiberiya so let's go see bad buurta wataa badina wataa iga dhaqays buurta kama wata this so yeah let's go outside hay badan brother halkaasaan u saaraya iskada dhag aga kama bixi karta baasha
halkaas baa saa u socda silsilada buuraha unbaa xeebta saa u raacaysa seashore qadarkiisan ilaa yar halkaa waa buuru. It's the only seashore arki doonto. There we go. Man, that was a nice triple line. All the way to 80. That's what we get. Eilna saasaan ku soo dhaafnay. Hadda waxaan ku soconaa ilaa Garowe. Waxaan ugu qaadanaysaa maybe 4 hours maybe. Maybe 4 hours, 5 hours maybe. Buurta dusheedii baan saarannahay. Waddadii dowgii wakaa. Wataa waddadii. Wakaa yar baa laga dusaya. Ya buuraasaa laga dhacaya, buuraasaa laga dhacaya. Buurahan nugaal oo dhan waan u dhammaystirana. Kolba tog umaan ku dhaadhacayna. Laakiin Eil aad bay qurux badnayd. Video-gan halkaas ku soo gabagabeynaya aad baan idin salaamayaa. Next trip.